بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan markii ugu horeyso ka mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah aad u soo horteen qorraxda aad u taagneedeen maanta dhan aad sugayseen aniga iyo wafdigii idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho ee idinku soo booqanayay Caabudwa waxaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkaas waana idinka raali gelinayaa tacadiga daaha ee ina galay ee aan idinka soo daahnay anigu aad uga xun dulqaadkiina iyo taagnaanta ciridda waxay ay u dhiirigelinaysaa hadafkayga iyo hamiga aan ka leeyahay inaan u istaago ka shaqaynta ka mid noqoshada hoggaanka ugu sarreeya maamul goboleedka Galmudug oo markiisii labaad doorashadiisa loo madlan yahay inay u sameeyaan ka dhacdo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa odayaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka fanaaniinta askarta ciidanka nala jooga wariyaasha iyo dhammaan qof kasta oo meeshan joogo oo iyaga oo waliba raalli ka ah inay u hoggaansamaan soo raacaan guddoonka degmada Caabudwa oo maanta garabkayga taagan ugana mahadcelinaya waqtiga qaaliga ah ay bulshadooda iyo musharaxiintooda tartamaya ay u wada sameeyeen ay ugu muujinayaan nidaamka doorasho lagu galana waxa lagu yaqaanaa degmo kasta inay iyadoo diyaar u tahay iyaga guddoonkooduba inay musharaxiinta soo wada dhaweeyaan nin walibana ka dhageystaan wax qabadka uu rabo in codka lagu siiyo si bari lagula xisaabtamo intaasi kadib waxaan u socdo waa waxa aad wada ogtihiin oo ah in magaalada Dhuusamareeb inkastoo ay nagu daahday oo 7 bilood madaxa ay gelisay doorashadii Galmudug oo aan u taaganahay ku xigeenka madaxweynaha Galmudug sida aad la socotaanna waxaan ahaa musharaxii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay inuu xilka u taagan yahay inkastoo gadaashay ay yimaadeen musharaxiin kale laakiin waxaan rabaa inaad idinku nasaartaan miisaanka ama kafada lagu kala qiimeeyo nin waliba wuxuu horay u qabtay iyo wuxuu rabay inuu qabto marna diyaar uma ihi inaan idinku matalo kursi iyo xil idinka aan maqaamkiina ahayn idinka ayna raalli ka ahayn idinku aad wax ku tuumaysaan inay idinkaga maqan yihiin sida la socotaana doorashadii ka dhacday 2015 ama 2015 cadaado dadkii tagay isku dayay inay maamulkaasi qayb ka noqdaan gurac markay arkeen isaga dhaqaaqay anoo tixgelinaya in hoggaanka dhaqanka ee nooga qayb galay waagaas inaysan ku qancin una hoggaansamay inaysan doc ka faruur samayn ee isaga dhaqaaqan ku jira imakana maamul Galmudug loo mideysay haduu jiro waxaan diyaar u ahay inaan u noqdo musharax maamul goboleedka Galmudug ee madaxweynaha sidaa darteed Galmudugta aan rabo waxaan idin dulmarayaa nooca ay noqonayso waxaan rabaa Galmudug amniga ka shaqeysa oo xoreysa ilaa iyo deegaanada naga maqan ee cirifka ku haya ilaa ceeldheer ilaa iyo gaalkacyo ilaa magaaladan imika aan joogno ee ku taala cirifka xuduudda aan la leenahay Itoobiya marka aan leeyahay ammaankana waa meesha ay noloshu ka bilaabato oo dadku markay amni helaan ay kaga fikiri karaan horumarka kale ee leh waxbarasho ee leh caafimaad iyo aasaasiga ganacsiga sidoo kale waxaan diyaar u ahay Galmudug aysan cidna marti uga noqon qof kale oo ay wada leeyihiin dadka wada degan raallina isaga yihiin qof walibana guriga uu joogo uu ku dareemo in uu isagu lahashada ama lahaanshaha Galmudug uu wax ku leeyahay garsoorku waa laf dhabarka sida la socotaan 4 sano oo Galmudug jirtay waa waxay nooga dhamaatay qasaaro oo dadka Galmudug wada degan maamulkii soo maray wuxuu ku ragaadiyay cadaalad darro aysan dadku ugu sinayn in ay xaq iyo xuquuqda ay ku leeyihiin Galmudug ka helaan Galmudugta aan doonayo waa mid garsoor ah oo idinkoo dhan guri waliba ay ku gaari doonto cadaaladda sida la socotaan waxaan noo buuxsamay 30 sano oo burbura dalka Soomaaliya ee dawladda aanay ka jirtay hadii ay jirtana ay tabar yaray sida la socotaan magaalada Muqdisho oo xudun ah ummadda Soomaaliyeed 7 sano kadib markii la joogay burburkii ayaa jaamacaddii ugu horeysay waxbarasho ay samaysay oo ah jaamacadda Muqdisho 1997 Caabudwa waxaas ayaan darro iyo culays nagu ah
in caawudu waa 30 sano kadib aan la tacaalayno oo la daalaadhacayno jaamacadii ugu horeysay ay dufcadii noo fadhido waxaan ka shaqayn doonaa in aan meeshaas aan joogno ka gudubno aan gaarno inaan asaagay la qaybsano waxbarashada horumartay dalka ka jirta sidoo kale waxaan rabaa in aan ka shaqeeyo maamul goboleed la shaqaynaya dawlad dhexe oo ku shaqaynaysa cadaalad oo turaysa ummadda Soomaaliyeed dadkuna ay u siman yihiin xaq dawlad goboleed kasta leeyahayna siinaysa kay ku leedahayna ka qaadanaysa sida aad la socotaan Soomaalida hadda waxay tiraahdaa fuleexantii ma mooga waa laga yaabaa dadka deegaanadan jooga iyo qaar kale oo badan inay aaminsan yihiin inaan ka mid ahay mucaaradka dawladda imika jirta sidaa darteed waxaan rabaa durwaagii caruurta waa loo kala sheekeeyay iyagoon is arag oo waa la kala cabsi geliyaa waxaan rabaa maanta inaan idin cadeeyo waa sax mucaarad waan ahay laakiin xaq diini ah oo la igu leeyahay oo waajib ah ayaan mucaarad ku ahay sidaa la socotiin badidiina waa tii la yiri walaalka hadduu gardaran yahay u heeli haddii laga gardaran yahayna u heeli hadduu gardaran yahay u heeli oo dadka ka qabo waa heelo haddii laga gardaran yahayna xaqiisa u soo dhici dawladda sare iyo hogaanka u sareeyo oo isu kaayo tuhmayo waxa naga dhaxeeyo waa inaan garta lagu leeyahayna ka qaado tuu leeyahayna u doono mucaaradnimadana sideeda waxay ku xiran tahay isla xisaabtan waxaan fahmi karaa guri dimuqraadi inaan ka imid waarun aabahay waa ka mid yahay dadka maanta halkan igu soo dhaweeyay laakiin mucaarad iyo muxaafid baan labadeennu kalena iskuma culaadino iskuma diidno nin waliba aragtidiisa loo tixgeliyaa taasina waxay ku dhisan tahay qof waliba kartidiisu inuu tijaabiyo isagoon qof kale marti uga ahayn ama ka filaynin heel gaar sidaasoo kalaan rabaa hogaanka sare iyo idinkuba inaad noo wada fiirisaan cadaaladda iyo xaqa inaga dhaxeeyo idinkuna idinka maqan anigana iga maqan oo hadday mar idinka maqan tahay waa mid iga maqane hore waxaan u ballan qaaday doorashada inta ay socoto kaliya dadka iyo deegaanka kuma soo noqdo musharaxiinta kale waxaan filahayaa inaan uga duwanahay in anigoonan joogin kursi uusan dhaweyn dadka deegaanka dhib kasta iyo baahi kasta oo jirto aan kala qayb galo oon duruufahooda ka qayb qaato iyadoo 26 xubnood oo lagu matala dawlad dhexe iyo maamul goboleed aysan dib u soo jaleecin magaalada Caabudwa 26 haddaan idin kala qaado waxaan lagu matala dawladda dhexe 5 xildhibaan oo halkan ka soo jeeda madaxweynaha marka lagu daro 16 xildhibaan oo galmudug ah iyo 5 wasiir intaasiba waxaan filahayaa doorasho mooye ka hor inay is arki jireen laakiin waxaan rajaynayaa inay baraaro u noqoto oo magaaladii lagu baratama ay noqoto baratankana faa'iido ay ku jira ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin mar raba inaan waqti badan idinka qaado waa wada joogi doonaa waqti baan idinla qaadan doonaa haweenka waa la kulmi doonaa dhalinyarada waa dhegaysan doonaa odayaasha iyo waxgaradka magaalada joogo gartooda iyo tusaalahooda iyaguna waa u dhagraaricin doonaa waxaanan ka tagi doonaa magaaladan anigoo huwan aragtida idinku aad ka leedihiin galmudugta cusub ee aad sugaysaan taasina waxay fursad u saamixi doontaa haddii alla ii calfo oo aan ku soo baxo madaxweyne ku-xigeenka galmudug inay noqoto meel aad igula xisaabtantaan buugga iyo qalinkiina diyaarsada nin waliba wuxuu ii dhiibo markaan xukun helay iga heli doonaa aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay allah idin sharfo waa karaamaysan karaamo iyo qiimo korkiina allah geeyo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ardayda qiimaha badan ee dhalinyarada ah ee iskoolada iyo waxbarashada iyagoo jira loo muujiyo dareenkooda iskooladooda iyo meel kasta wax ku bartaan waa tagi doonaa kaalinta iyo doorka aan ku leeyahay waa ka qaadan doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh